wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi oo goor dhaweed warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu xaqiijiyay in laba qof oo qaba cudurka coronavirus laga helay gudaha Soomaaliland labada qof ayaa waxay kala yihiin nin u dhashay wadanka Shiinaha oo ku sugan magaalada Berbera iyo nin ka soo laabtay wadanka UK oo ah muwaadin Somalilander oo isna ku sugan magaalada Burco wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu sheegay in shaybaarkii ay sameeyeen iyo mid ay u direen wadanka Kenya kadib ay aqoonsadeen in labadaasi qof ay qabaan cudurka coronavirus waana labadii qof ee ugu horeeyay ee la xaqiijiyo in laga helo gudaha Soomaaliland waxaan isugu yeernay wasaaradda caafimaadka oo geedeen dadaalkii loogu jiray bariyahaba diyaar garowga la socodka iyo wax ka qabashada fadan ku soo kordhay caalamka oo xanuunkan COVID-19 maanta oo bishu ay tahay 31 bisha 3 2020 waxaanu xaqiijinaynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka COVID-19 oo midkood ku sugan yahay magaalada Berbera oo dhalashahaan uu yahay Chinese kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada Burco oo ah qof Somalilander oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska labadan xaaladood ama labadan bukaan waxaanu arrinkooda ogaanay 26 bisha kadib waxaanu sameynay maalintii Jimcihii oo bishu ahayd 27 waxaanu amar ku siinay maamulka caafimaadka ee magaalooyinka Berbera iyo Burco in lagu sameeyo shaybaar labada qof si loo hubiyo in xanuunka qabanayeen kale shaybaarkaasi waxa sameysay wasaaradda caafimaadka natiijadii soo baxday markaa waxa noqotay in xanuunkaasi ay qabaan uu jiro laakiin si aan u xaqiijino ama aan u hubsano waxaanu u dirnay dhiigoodii mar labaad shaybaar ku yaal dalka Kenya oo la yiraahdo Camry 28 bisha oo WHO ay aqoonsan tahay kadib markii baaritaano dheeraad lagu sameeyay waxa xalayto la soo gaaray in la soo xaqiijiyay oo ay iswaafaqeen baaritaankii nagu aan sameynay iyo baaritaankii uu sameeyay shaybaarka ku yaal dalka Kenya labada qofna yihiin laba xaaladood oo xanuunka coronavirus qaba isla markaa waxaan anagu amar ku siinay dhammaan maamulada caafimaadka ee labada gobol ee saaxiib iyo togdheer inay bilaabaan in la daba galo ama baaritaan lagu sameeyo dhammaan dadkaasi ay la kulmeen ay la joogeen ama intii labada ay ku sugnaan labada magaalo ay sarkeen si aan u xaqiijino ama aan u hubino inay jiraan dad kale oo xanuunka iyaguna qaba waxa kale oo idin sheegnaa inaanu baaritaanada wixii ka soo baxana aanu idin soo wadaagi doono labada xaaladood ama labada bukaan ee idin sheegnay labadaba xaaladoodu way degan tahay aad bay u fiican yihiin waxaana gacanta ku hayay shaqaalaha caafimaadka ee labada magaalo waxaanu halkan uga faa'iideysanaynaa inaanu dadweynaha farno in horena waan u sheegi jirnay inay u hoggaansamaan oo ay raacaan tilmaamaha iyo awaamirta ka soo baxaysa guddiga qaran ee la dagaalanka iyo ka hortagga iyo diyaar garowga xanuunka iyo sidoo kale tilmaamaha caafimaad ee laga baahiyo idaacadda TV-ga iyo goobaha kale dadkana waxaanu faraynaa in arintaasi ay tahay arinta xaqiiqada ah ayna tahay maanta laga bilaabo in la fulin doono talaabooyinka xiga aad baad mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Xasan Galayd wararka Cable Hargeysa.